بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر لوادا تلاكونو تي في وصفيان شيخ أحمد. عاو وحان كهالي دونا علنك الصومالي. إيه علامة الصومالي. تاريخ ذا ماشي أكيد مادين. معناها أي نوليهين أنك الصومالي هان. أنت أنك نقانو يا أنت أنك كابو. marka ugu horeysa idin tilmaamo calaamadii ama fikiradii inta badan aabaha u ahaa dhalashada calankeena Soomaaliya iyo calaamada Soomaaliya waqtigii Soomaaliya ay dagaalka ku soo qaadeen dawladihii na soo gardaraystay oo ahaa Ingiriiska iyo Talyaaniga waxay labaduba la yimaadeen fikiro ay wateen oo mid dhaqaale iyo mid ay rabeen inay ku bedelaan diinteena fikiradaas waxa uu cadayn calanka Talyaaniga ee uu u sameeyay Soomaaliya saadu jeedaan dhexda waxa uga jira calaamada Kirishtaanka calanka Ingiriiska ee Somaliland waxa hadda qaybta hadda loo yaqaano oo u sameeyana waxa ku jira calaamada Kirishtaanka oo isaga caanba ku ah calankaas labaduba waxay u sameeyeen ka sokow calanka calaamad lagu garto wadan walba wuxuu leeyahay calanka iyo calaamad saadogtihiinba calankeena buluuga ama kalarka buluuga ee Soomaaliya ay leedahay wuxuu ahaa mid muddo hore soo jiray balse waxaan rabaa inaad fiirisaan calankan wadanka Soomaaliya waxa ay ka kooban tahay waxaad u jeedaan calankii kalarka buluuga dhexdiisa ku jiro hal xadig dhexda uga jirto shabeel na uu ku jiro ama haram cas marba sida Soomaalidu taqaan haddana waxaad u jeedaan in laga soo dhaxbixiyay calankii buluuga ah iyo xadigtii kaliya shabeelkii waa la soo guuriyay waxa lagu dhajiyay calaamada Soomaalida labada dhinac loogu dhajiyay waxaanan wali arkin oo aan rabaa maanta inaan tusiyo in calaamada Soomaalida ay u jeedaan ay ku jirto calaamadii Kirishtaanka waana si daruntii mana garanayo sida ay ugu dhaaftay ama dadkii waqtiga joogay ay uga hoos baxday sida daraaddeed waxa wax lala yaabo waxa ama kaag in anagu islaam ah boqolkiiba boqol inaan haddana wali calankeen calaamadii Soomaaliya ee aan isticmaalanay ay ku jirto calaamadii Kirishtaanku ay ku jirto waxaan rabaa marka inaan isla fiirin ka sokow labada shabeel ka sokow calaamada Kirishtaanka oo dhexda uga taala ama meesha qor ku taala waxaad haddana fiirisaan meesha bannerka waxa loo yaqaano ama calanka hoose oo cad oo labada waran iyo labada caleemood ama labada laamood oo caleemaha ah dhex mara inaysan waxba ku qornay caalamka kaleeto waxa ugu qoran waxa la yiraahdo halku dhigga wadanka mar kale waxaan rabaa inaan is xusuusino hadaba mar haddii ay aan aragnay in bartamaha calaamada aan isticmaalno anagu dad islaam ah inay leedahay calaamadii Kirishtaanka sidoo kalena calankii ama bannerkii aan waxba ku qornay waxaan fahmi karnaa inuusan calaamadani inaysan ahayn calaamad u qalanta ama mateli karta bulshaweynta islaamka ah ee Soomaaliya sidoo kaleeto calankeena Soomaaliya ee ah kalarka buluuga halka xidigna ay ku dhex taalo inteena badan la baray calaamada buluuga ahi inay tahay calaamadii cirka kalarka cirka kaleeto ama la yiri waa calanka wuxuu og yahay qaramada midooba oo kaleeto xidigtana waxaan kugu sheegay inay tahay shanta Soomaali oo sidii lagu sharaxa ahayd Soomaalida labada Soomaali ee hadda isku darsantay Soomaaliya ay ka kooban tahay koonfur iyo waqooyi Soomaalida Djibouti Soomaalida Ethiopia iyo Soomaalida Kenya inay shantaas tahay sidoo kaleeto calaamada
ama coat of arms waxa uu sheegaa waddankaasi waxa lagu garto, waxa uga duwan yahay, awoodda uu leeyahay, caadadiisa, dhaqanka iyo diinta intoo dhan. marka intaasoo dhan markaan isla fahmay, waxaan go'aansaday, waxaan isku dayay markii aan la tashtay dad fara badan oo Soomaaliya, markii aan la tashtay dad ehludiina, markii aan la tashtay hooyooyin, dhalinyaro, dad waxbartay, dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, in aan alifo ayagoo lagu caawiyey calan cusub ee Soomaaliya iyo calaamad cusub ee Soomaaliya leedahay. saad u jeedaan calankan cusub ee Soomaaliya waxa uu leeyahay calaamadihii Soomaaliya lagu yaqaan. waa midda ugu horeysa, midabkii Soomaaliya ama midabkii calanka ma aanan bedelin, sidiisuu yaalaa. waayo midabkani wuu ku horreeyay xataa xilliyadii Talyaaniga iyo Ingiriisku ayna soo weerareen ka hor ayuu jiray. waxaad u jeedaan ugu horreynba in uu leeyahay 5 xidig. 5 xidigood waxay u taagan yihiin shantii Soomaaliya. meeshii Soomaalida qayb walba haba la sii lahaa xidig jabkeed, waxaan siiyey qayb walba oo Soomaalida ka mid ah 1 xidig. 5 xidigood. qaybta kaleeto waxaad u jeedaan in aan ku soo daray midab caddaan ah. midabkaas caddaanka wuxuu u taagan yahay nabad. kalarka buluugana waxaa loo fasiri karaa inuu yahay nadaafad, caafimaad, barwaaqo, intaasoo dhan. waxaa ku dhex jira ood u jeedaan lanqayrta cas ama crescent moon oo calaamad u ah islaamka, iyo xidigtii oo ku dhex jirta. waxaa xidigta dhexdeeda kusii jira kalimatu Allah. macnaha calankaasi marka uu leeyahay, waxaan u malaynayaa qof kasta wuu iska fahmi karaa inaan dad islaam, inaan caabudno oo aan tusno cibaado Allah subxaanahu wa tacaala, inaan addoommadiisii, in magaca ilaahay uu ku yaallo oon kor ugu qaadno, waa wax lama huraan. waana wax noo fiican waddankeenna iyo annaga noo fiican. calaamadii islaamkuna ay ku taal. calankaasi ama calankani wuxuu ka turjumayaa Soomaaliya in ay tahay 5 qaybood. waxay turjumaysaa nabad doon inaan oo nahay dad ama waddan diyaar u ah inay ku noolaadaan nabad. qaybtaasi waa calankii. sidoo kaleeto waxaan disaangaraynay ama aan disaangareeyey Somali coat of arms ama calaamadii Soomaaliya. saad u jeedaanba calaamadda Soomaaliya meeshii ay ku jirtay calaamadda Kirishtaanku 5tii meelood waxaan geliyey 5 xidigood. korkooda waxaa ku yaala 7 xidigood oo dahabi. 7 xidigood waxay u taagan yihiin 7 maamul goboleed, 6 maamul goboleed iyo Muqdisho. waxaa dhexda uga sii yaala calankii oo leh xidigtii midowga, lanqayrtii oo ah labadooda calaamadda islaamka, iyo Allah subxaanahu wa tacaala magaciisa oo dhexda uga sii yaala. markaad fiirisid gadaal intaas waxaad arki kartaa carradii badda oo nadiif ah, biyihii Indian Ocean ama badweynta Hindiya oo blue ah, iyo cirkii oo dib markaad usii fiirisid hor usii fiirisidna aad u jeedi kartid markabkaas wuxuu u taagan yahay in ay noqoto Soomaaliya waddan awood ciidamo badeed oo xoog badan leh. markabku ama doontu waxa kale u taagan tahay ama macnaha kale leedahay wuxuu yahay khayraadka dabiiciga ah, malayga iyo khayraadka badda ee waddankeenu hodan ku yahay. waxaad ogtihiin inaan leenahay xeebaha ugu hodansan uguna dheer Afrika, uguna hodansan adduunka marka la yiraahdo khayraadka badda laga helo. soo laba dhinac uu leeyahay,
xoogga badda ama xoogga ciidamada badda iyo khayraadka kalluumaysiga iyo wixii la mida oo badda sidoo kale. waxaad u jeedaan calankii Soomaaliya iyo calaamadii Soomaaliya oo nadiifka ah, kirishtaan calaamadiisa oo leh macno fara badan oo tusaya qofka maanta arka calankaasi ay u caddahay Soomaaliya inay tahay dowlad islaam dowlad khayraad fara badan leh, dad xadaaradooda iyo nidaamka ay ku dhaqmaan loo jeedi karo waxa ay tahay. saad ogtihiin diinta islaamku waa constitution, ayadaa waxay tahay dastuur iyo nidaam sideeda u dhamaystira. sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa in dhammaanba bulshada Soomaaliyeed laga bilaabo qofka citizenka oo caadiga ah ilaa iyo madaxweynaha waddanka inay ila qaataan fikirkan quruxda badan oo calankan laga dhigo calanka Soomaaliyeed si caadi ah loo aqoonsado, adduunka dhan ay nagu aqoonsadaan, calaamadana laga dhigo calaamada Soomaaliya lagu aqoonsado. ma malaynayo qof Soomaaliya inuu doonayo kadib marka uu fahmo calaamadii hore inuu doonayo in ay qayb ka noqoto noloshiisa ama waddankiisa calaamad kirishtaana oo uu nooga tegay waddan doonayay inuu annaga na gumaysto, waddan doonayay inuu khayraadkeena qaato, waddan doonayay diinta inuu bedelina waayo. marka waxa weeyaan waa ayaxtag eelre macnaheedu mar hadday awood u yeelan waayeen oo aan iska rixnay waxay nooga tageen calaamadahoodii iyo raadkoodii. ayagana maanta waxaan diyaar u nahay inaan iska bixino, inaan bedelno, inaan tusno caalamka waxa aan nahay iyo inaan annagu nafteena dadkeena Soomaaliyeed ilmaheena yararka ee soo barbaaraya shacabkeena Soomaaliyeed inay ku barbaaraan, inay bartaan, inay fahmaan calankooda macnaha uu leeyahay, inay ku raaxaystaan inay yihiin dad islaama, inay ku raaxaystaan inay yihiin dad fahamsan calankooda macnihiisa iyo waxa ujeedada uu leeyahay. ogaadana calanka iyo calaamadda waddanku uu leeyahay waa waxa ugu horeeya ee qofka bini'aadamka ah waddankaas bannaanka ka yimid uu ka fahmo waddanka. marka waxaan u maleynayaa inay qalad tahay in intoo la arko calankeena la yiraahdo hal xidig iyo buluug wax macno leeyahay ma ama inta la arko calaamadda aan leenahay la yiraahdo Soomaaliya soo islaam ma maxaa waa maxay calaamadda kirishtaanka meesha ku taala. su'aalaha noocaas ah inaan ka baxno waan idin mahad celinayaa. haddii aad ka hesheen la wadaag asxaabtaada iyo dadka aad taqaanid. ogowna waxa weeyaan haddii qofku uu shay fiican oo sunnah uu keeno ajirkeedu kulu leeyahay. marka haddaad sii faafisid, haddaad ka dhaadhicisid asxaabtaada inta aad taqaanid kaliya, haddaad ka dhaadhicisid inaan calaamadda kirishtaanka iska bixino oon ka bixino calaamadeena iyo nolosheena inaan ka bixino, ogow waxa aad qaaday tilaabo fiican oo wadaninimo ah, islaamnimana. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi